Sorry. Hi guys, Assalamu alaikum. So dhawaada. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوقل وكا قاضي ولاalo waa idin salaamo dhamaantiin. waa sugaa xoogaa yar soo dhaqsada. daal badan maanta wallahi billah lagama sheekeyn karo. ma isugu xir waxaan sameynayaa wariyaa reer Facebook soo dhawaada nabad iyo nolol jawiir. Thank you. Soo dhawaada. anaga galabay noo tahay kuleeliyaa noo bilowday. waxaa mooda kuleel qaboobihii dhammaa banaankan joogaa maanta. soo dhawaada waa bilaabayaa walaalayaal. soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa Safiya. ma waanaan daalanin waan daalanaha walaal. qof ay weydiina wuxuu leeyahay ugu soo daashay muruga iyo daal miyaama ka baxnaaba. subxaan allah. waliba qaasatan qof Puntland ka soo jeeda. soo dhawaada waa in salaamayaa. walaalayaal waxaan ilaahay soo dhawaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ma idinku dheeraanayo kaliya waxaan rabaa inaan maaragtay meeshaan waxaa ka socday halgan iyo hawlan ka waday. marka maalinba meel bay aadaysa sheekadu, maalinba meel ay aadaysa xaajada. mar waxaan islahaa waa la guuleystay, haddana waxbaa soo baxa, haddana waa la guuleystaa, haddana waxbaa soo baxa. marka waa iska xaal adduun, ma garateen. laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo. waxaa waaye processkan la maraayo. dowladnimada Soomaaliya waa soo socotaa. dowladnimo waliba wanaagsan oo wixii hore laga baxaayo baa soo socota. aniga taan aaminsanahay. waxaa waaye waxaan maraynaa trials, tests and trials wax la dhaho. waxaan maraynaa imtixaanadii ka horreeyay waa waxaan. marka waayaa la soo maray. waxaa la soo maray xilli la isleynayay oo qori la isu qaatay oo dadka isbaabi'iyeen civil war. waxaa la soo maray xilli niman wadaado sheeganaya oo diinta beenka sheegayay. waxaa la soo maray xilliyo waalanaa la soo maray. maanta xilli aan ka fiicannahay male. horta taasaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo oo aan niyadda ugu qaboojiyo. ugu horreyn waa inaan fahanaa maanta xaaladda aan ku jirno, saacaddan la joogo. waqti aan ka fiicannahay Soomaaliya ma jirto intii qarnimadan ay naga burburtay. marka waa la kufkufayaa. maalin waxaan soo qoray waxaan iri walaalayaal hal asbuuc xataa ma jiro miyaa oo aan nasan karno. hal asbuuc oo aan nasan karno oo war farxad la aan heli karno ma jiro miyaa. marka waxyaabaha ugu yaabka badan waxa waaye dadkii soo wacay walaalayaal fadlan iga daayo WhatsApp-ka dadka iga soo wacay ilaan interruption ay ugu sameeynaysan moogtahay isku xishooda xoogaa hadeedaan hore u ogeyn. iga daaya. waxaan ku jiraa live soo aragtaan iga dhaafahay soo wicina adinkoo mahadsan.
marka waxaan rabaa inaan iraahdo walaalayaal waxaan socdo waxa waaye waa imtixaanadii laga gudbaayay oo loo gudbaayay qarnimada Soomaaliya aniga waan murugooday maanta laakiin waxaan istusiyay hadana waxaan waa wax aan filan karna inay dhici karaan marka maxaa noo eg laakiin shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya maxaa noo eg waa su'aasha la rabo in la isweydiiyo shacabka Soomaaliyeed oo ay shacabka Puntland ku jiraan waayo Puntland shacabkeedu waa shacabka Soomaaliyeed shacab banaanka ah Soomaaliya ma aha waa dad waxaan arkay dad aad loo marin habaabiyay oo calanka Puntland caruuro yaryar oo laga dhaadhiciyay oo khatarteeda arinta leedahay khatarteeda waxa waaye Soomaaliland waxaan ku ogeyn caruuro calan loo sameeyay oo calanka laga dhaadhiciyay anigu calankaas uma arkeen waagi hor markii la sameeyay dhibaato inuu noo keeni doono laakiin waxaan arkaa dhalinyaro badan oo aad ma aragtay loo marin habaabiyay oo Puntland inkastoo ayna ku dhehaynin Soomaaliya way ka go'day haddana aad moodo in Puntland calankeeda iyo Puntlandnimada ay kala weyn tahay Soomaaliya ana waxaan rabaa inaan sheego oo xasuusiyo dhalinyaradaas dadka waaweyn inta arintaas sameynaysa si ula kacay horta u sameynayaan waa waxay ku tala galeen oo dana khaas ay ka leeyihiin laakiin dadka yaryar oo la marin habaabinaayo waxaan rabaa inaan xasuusiyo Puntland wax ma noqon karto Soomaaliya la'aanteed Puntland waxba ma noqon karto Soomaaliya la'aanteed Soomaaliya oo jirin Puntland jirimayso Puntland waa gobol kamid ah Soomaaliya waa qayb kamid ah oo muhiim ah Soomaaliya waxaan rabaa marka dhalinyarada la marin habaabinaayo oo Puntland lagu qufulay oo maxay ahaayday maalin kasta wax aad ka naxayso oo islaada marka qaadkood dhalinyarada carruurta yar xagee ka soo baxeen ay ku hadlayaan waxyaalaha soo qarnimada Soomaaliya dhaawacaya waxaan rabaa inaan xasuusiyo walaalahaygaas yaryar Puntland waa qayb kamid ah Soomaaliya Puntland wax ka gooniye Soomaaliya ma aha marka taa ogaada danta Puntland iyo danta Soomaaliyana waa isku tolan yihiin waa hal labadan ma kala laha waxaan arkay niman groupyo ah oo sameysmay oo raggii Puntland wax ka soo ahaan jiray iyo kuwa hadda ah iyo groupyo waxa jira parasites aan ugu yeeraa oo waxay ku dul nool yihiin shacabka parasites marka la waxa waa dad danaystayaal ah oo ku dul nool dhig meerata oo ku dul nool shacabka dadkaasi waxay gadaan fariimo marin habaabinahay ka gadaan dhalinyaradu waxay ka dhaadhiciyaan Puntland inay tahay meel ka sarreysa Soomaaliya waxay ku qaraabtaan wax la dhoo federaalka anigu federaalka waa aaminsanaa waxaan u qabay federaal sax inuu ahaanaayay waxaan u qabay dalka in wada sax loo wado laakiin groupkaas waxaan ka dareemayaa inay rabaan inay ku daneystaan danahooda khaaska ah federaalka wax la dhoo oo shacabka marin habaabiyaan shacabka Puntland waa shacab nabad jecel waa shacab dawladnimada jecel waad ogtiin taariikhdooda laakiin waxa soo baxay waayadan dambe rag u badan ragii xataa wax bartay aqoonta lahaa oo laga filayo dalkan inay badbaadiyaan ummadda Soomaaliyeed inay badbaadiyaan ee qarnimada Soomaaliya oo asaagood wadamada dariska ay qarnimadooda iyo dalkooda sharaftooda ilaashadaan annaga nasiib darrada ugu dhacda waxay tahay ragii wax noo soo bartay oo la rabay inay la tartamaan facood waxay u bataan waliba khaasatan Puntland aan sheegaya ragga ka soo baxay oo aqoon-yahanada ahaa on ku tuhmaynay inay garasho fog leeyihiin waxaad moodaa inay rabaan in ay federaalka waxa la dhaho ay danahooda khaaska ku fushadaan ay waliba ka xishoonin ay meelaha la soo fariistaan hadda waxaan arkay kuwa bilaabay live-yada inay soo galaan aan ul soo gali jirin waxaan filayaa xaaladda ku soo kululaatay laakiin waxaan idin sheegayaa raggiina laga biilo imaaraad on garanaayo oo la wada yaqaano dadkii maamulkii hore Puntland kamid ahaa iyo kuwa hadda jooga oo imaaraad laga biilo shacabka ma marin habaabin kartaan shacabka Puntland afduub uma qabsan kartaan shacabka Puntland federaal wax la dhoo kuma marin habaabin kartaan federaalka waa akhrina dadkan iskuulada aada oo wax akhriya federaalka macnihiisa waa naqaana nama bareysaan ma garateen dadka masaakiinta ah oo aad marin habaabinaysaan oo meelaha orday iyagoo orday ku soo galaya arrintaas ma socon doonto insha Allah tuubooyinka idin furna waa xiri doonaa insha Allah aniga waxaan idinka ballan qaadayaa doorashada soo socota hadii Ilaahay idmo xataa hadayna noqon aniga qofka meesha mas'uul ka noqda waxaan insha Allah Ilaahay idinkiisa qorsheenaynaa in dadka tuubooyinka u furan yihiin oo shacabka marin habaabiya oo federaalka beenta ku qaraabta tuubooyinka in laga xiri doono waxaan idin kula talinaa dhowr bilood doorashada ka hartay si diyaarsada shaqooyin kale meel kale oo aad ka heshaan resources oo aad ku noolaataan raadsada
Puntland ma noqon doonto meesha tubada aad ku ka dhuuqdaan waa la xirayaa tubooyinkaas anaa idin ballan qaadayo tubooyin dambe oo shisheeye inta laga soo sameesto laga soo xirto yaa haday noqon lahayd kalluumaysiga kuwa xada shirkadaha kalluumaysiga heshiiska la soo galay haday noqon lahayd kuwa imaaraadka guryaha looga dhisay oo laga biilo waxa idin xaqiijinayaa marka doorashada ay dhamaato insha Allah yaa qofka soo baxa in uu message-ka uu ku soo bixi doono iyo principle-ka uu ku soo bixi doono ay noqon doonto inaan Puntland dambe tuuba laga dhiganin shisheeye lacagta maaragtay dad gooniya dad khaas loo soo mariyo oo qarannimada Soomaaliya lagu aaso ani taas idin ballan qaadaya meel ku qorta hatta hadaan aniga ku guuleysan doorashada waxaan ka shaqeyn doonaa dadka tubooyinka u furan yihiin oo shisheeyaha lacagtu ay u soo shubaan oo especially imaaraadkan sheegaya nimanka imaaraadka ay tubooyinka uga sameysteen Puntland yaa oo maamuladii hore ku jira iyo kuwa hadda waxaan idin xaqiijinayaa tubooyinka waa la xirayaa insha Allah ballan waxa aad tubooyinka in la soo xiro waayo tubooyinkaas aad dhaqaalaha ka heshaan oo dalka Soomaaliya qarannimadiisa lagu baabi'inayo waa cadawga Soomaaliya cadawga dhaqaalihiisa iyo resourceskiisa qarannimada Soomaaliya lagu burburinaa meesha naga soo galaysa halkaas waa marka waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo 5 bilood haysatiin waa idin ka naxaya si sameeysta wada kale oo aad dhaqaale ku heli doontaan wixii hore u qaadateen anagu idin raacan meen adinkii aakhiradii ma garateen laakiin ma sii socon doonto January 2019 wixii ka dambeeyay hadii Ilaahay idmo tubooyinka imaaraad ma sii socon doonaan dadka dhuuqa ma garateen oo guryaha laga dajiyay imaaraad oo Puntland ku dul nool oo parasiteska ah guryo iyo waxa raadsataan dhaqaale iyo shaqooyin raadsada inta dar goorta dhaqaale raadsada shaqooyin raadsada projectiyo kale raadsada kalluumaysi idin furnaan maayo maxaa la dhahaayay idin furnaan meesha tubooyinka lacagta imaaraad idin kaga soo shubo oo qarnimada Soomaaliya lagu dumiyo waxa soo dhan waa la soo afjaraya shacabkayga masaakiinta ah oo la marin habaabiyeen waxaan rabaa inaan kula taliyo Puntland khaasatan ninka waxa raadisaan taariikhda ninka aad daba ordaysaan oo aad taageereysaan oo idin aad u qabtaan inuu federaal darteed uu maaragtay dawladda Soomaaliya u burburinayo taariikhdiisa baar waxaad soo ogaanaysaa imaaraad inuu guri u dhisay ama walaalkiis u dhisay ama aabiis u dhisay ama la biilo baad soo ogaanaysaa shacabka waxaan ku weydiiyay danta kuugu jirta maxay tahay nin qabiil ahaan aad u daba orado maxaa waa danta kuugu jirta maxaa ka faa'iideysaa waxaan rabaa shacabka Puntland waxaan rabaa maanta technology jira wax barta wax akhriya rag idin hor boodaya oo federaalka beenta ku qaraabanaya darsa wixii ahaan jireen iyo wixii yihiin waa rag la biilo anigu waan garanayaa wayna ogyiin inaan garanayo ma garatay waa iyaga waxa propagandada Facebook iyo meel walba laga fadhiisan waa media oo ku haya dawladda federaalka waa in maxay aheeday dawladda federaalka Puntland dhibaato ku hayso dawladda federaalka Puntland dhibaato kuma hayso annaga ka soo jeedna Puntland ma garatay Puntland dawladda federaal dhibaato ay ku hayso ma jirto actually it's the other way around maamulka Puntland ma aha shacabka ma aha xaasha lillahi maamulka Puntland ayaa wuxuu ku hayaa dhibaato aan caadi ahayn qarannimada Soomaaliya waxa ka shaqeeya waa dhowr qof oo tubooyin lacag ah dhaqaalaha ay uga furan tahay imaaraad ayaa ka shaqeeya waxaas marka waxaan rabaa shacabkow ka hara ragga aad horboodaysaan oo qaarna maamuladii hore ku jireen qaarna hadda ay ku jiraan oo dawladda federaalka damca inay burburiyaan waxa akhrisaa taariikhdooda dib ugu noqo waxay yihiin sababta keentay inay dawladda Soomaaliya ay kor yimaadaan dib u wareyso dib u baar ha iska dabagelin sidii xayawaanka ha iska dabagelin qof qayliyay aniga laftirkeyga waxa idin sheegayo hadaa rabtaan hay dhageysanina baara waxa aan ka hadlahay sababta aan u leeyahay dib u baara ma garateen marka ala kulli xaal waxaan rabaa inaan ku soo koobo intaas waxaan uga baxayaa shacabka Puntland taladoodii waxaan idin leeyahay ka hara imaaraad danoo ma hayaan qaar waxaan arkaya dhahaaya ciidankeena looma biilay 2000 intaas oo ciidanaha meesha joogto waa been waxaas propagandada la idinka dhaadhicinayo waa ciidanka waxa mas'uulka ah dawladda federaalka qorsha loo wadaa barnaamijyo loo wadaa dhaqaalahoodii loo soo wadaa Puntland waxay ka mid tahay Soomaaliya waliba waa muhiim Soomaaliya waxay u tahay number 1 strategic place meesha ay Puntland ku taala darteed waxaan rabaa shacabku dhagaha inaan furtaan Puntland beenta lidin sheega oo lidin leeyahay ciidamadeena la dayacay waa been ciidamadeena Puntland yaa dawladda federaalka priority u tahay mudnaanta koowaad ay siinaysaa waayo meesha ay ku taala Puntland strategic ahaanteeda darteed ma garanaysaa Puntland waxay ku taalaa meesha caalamka oo dhan ay isaga kala gooshaan marka in ay xoog saarto dawladda federaalka ayaday dan u tahay
horumarkeeda dan u tahay dhaqaale ahaan dan u tahay siyaasad ahaan dan u tahay ma garateen marka nimanka aan idin sheegay ee imaaraadka tuubada uga furantaa beeniyeen idin sheegin shacabkow indhaha fura waa idinku aqaana ina indhaha furtaan oo wax dhageysataan waa idin ogahay marka wax la idin sheego shacabka Puntland oo waad dhageysataan ma garateen dhageysta walaalayaalo waa ogaa madaxweynaha inaad taageersantihiin inaad dawladnimada Soomaaliya taageersantihiin inaad proud ku tihiin Soomaalinimadiina aad ku sharafsantihiin oo ku qanacsantihiin 10 nin iyo 20 nin oo danaystayaal oo qaarkood oil contract raadinayaan yaa oil contract raadinayaan dan kale raadinayaan male qaar waxay raadinayaan contract kaluumaysi ah wayba haystaan qaarkood yaa qaar waxay raadinayaan guriyo loo dhisay oo Dubai looga dhisay inay u badbaadaan qaar waxay raadinayaan biilkii Dubai ee Imaaraad uu qoray inuu u badbaado raggaas shacabka Puntland oo yeena idin wareerinin baraaruga gabadha ama wiilka garow jooga ama gaalkacid jooga ama boosaaso joogo nin Imaaraad lacag looga soo diro oo reerkiisa laga biilo oo guriyo looga dhisay Imaaraad muxuu ku yahay qorraxdaas aad cagacadahay muxuu ku yahay biyo ma haysatid oo koronto ma haysatid yaa oo wax ay ku hagaajiyeen malaha maxaa dan oo ku haysataa ood ku taageertaa nin qabiil maxaa ugu taageeraysaa yaa waxaan idin leeyahay ka waantooba arrimahan waa idin kala hadli doonaa moor hadii la hadmo laakiin ka waantooba shacabka Puntland inaad taageertaan nin qabyaalad awgeed aan dan idin haynin oo idinku dul nool yaa ninkaas oo laga yaabo in tuuba uga furantaa Imaaraad lacag ka soo gasho ninkaas oo laga yaabo in uu raadinayo contract ee maaragtay oil contract uu ka raadinayo dawladda federaalka uu ula dagaalsan yahay oo uu waaye ninkaas oo laga yaabo kaluumaysi inuu contract haysto yaa oo uu rabo kaluumaysigiisaas inay u badbaadaan ninka intaas oo wax sameysanayo oo danihiisa khaaska u ordaaya muxuu ku yahay marka aad adigu indha la'aan aad qabiil u taageerayso anigu waxa waa ka tagay walaalayaal waxa isoo wicina fadlan jooji wicida ilaahay waxaas waa iga koriyay waxaan soo waday ilaahay waxaas waa iga koriyay in aan nin ku taageero qabiil waxaan soo ogaaday waxa badan oo Soomaaliya iga soo baxay waxa kamid markaan wadankii tagay waxaan soo ogaaday ragga badankooda siyaasadda ku jira Puntland in ay danahooda shakhsiga u shaqeystaan waa dhici kartaa marmar inuu hadda gaas oo kale hadda wadooyin uu dhisay airport uu dhisay yes wax uu qabtay laakiin waxa ka xun haadaantu naga ridaaya ka xun dawladii qaranka iyo qarnimadii Soomaaliya markuu qofka ka hor yimaado haadaanu naga tuuraya jid xun oo la ii dhisay oo jid muxuu yahay markii bari dalka la iga qabsado oo gumaysi ii yimaado jid muxuu ii taraa airport muxuu ii taraa hadii gumaysi ii yimaado gumaysi maamulay dekedeeda maxay taraa hadii gumaysi gacanta loo galiyay Puntland ay shacabkeeda ina xisaabtantaan aan rabaa maanta idinka idin soo galay ina idin la hadlo waxaan idin sheegay walaalayaalo indhaha fura doorashada soo socota ayaan rabaa inaan ka hadlo doorashada soo socota reer walba nasiib darro waxa wax lagu soo xulayaa qabiil waa nasiib darro laakiin reer walba waxa laga rabaa jufo walba waxa laga rabaa qof wax garada inay soo xulaan doorashadan waxaan noo haray 5 bilood mise 6 bilood ma aqaan wax haray 7 January 2019 waxa doorashada lidinka rabaa in jufo walba iyo reer walba qof quality leh oo wax aqrin kara oo ugu yaraan jaamacad haduu jaamacad ka baxay oo wax yaqaan ina horta xildhibaan ka dhigtaan si qofka uuna u noqonin qof maaragtay aan waxba kala aqoonin oo warqadaha la iska marsado sida hadda baarlamaanka uu yahay oo kale Puntland waa la iska marsadaa waa mashiin oo kale kaarka mashiinka la marsado kale waay $2,000 loo soo tuuraya ku baarlamaanka Puntland markaas la leeyahay heshiis hebel dhaafi hatta ma yaqaano inay ku qorantaa hooyada ay aabaha la aasaya bari subax imaqla ninka xildhibaanka ee baarlamaanka Puntland ku jira ee heshiiska Dubai wall saxiixay hatta ma fahmi karo caruurtiisa iyo caruurtiisa dhaleen inuu aakhiro u diray oo dalkiisa bixiyay ma fahmi karo maxaa u keenay jaahiliin waay dad wax akhriyo ma aha xaqiiqada taas ma aha ina aflagaadeena waa xaqiiqad dad aqoon yahanna baarlamaanka Puntland kuma jiraan haddii ku jiraan waa farku tiris waxa la idinka rabaa shacabka Puntland doorashada soo socota dad aqoon yahan ah oo wax kala garanaya in la soo xulo waa furaha aan horumar ku gaari karno doorashada madaxweynaha inta la gaarin jufo walba iyo qabiil walba waa inaa soo xushid qof wax akhrin kara oo jaamacad minimum ka soo baxay jaamacadaha Puntland jaamacadaha Soomaaliya inuu ka soo baxay okay waa yaa qof wax akhrin kara ina keentaan waay jabkan ugu dhacay uma dhaceen 4 sano la soo dhaafay oo ay u noqotay gas inuu leeyahay meesha ATM machine oo kale intuu lacagta ka soo tuuro uu siinaa xildhibaanada uu leeyahay warmariyo wax walba oo checks and balances ee governmentiga lahayn
baarlamaan waani waxaa laga rabaa shaqadooda inay dawladda la xisaabtamaan xagee ku aragteen dawladda la xisaabtamo intii gaasiimid meesha ma jirto laaluushu siyaa maalin walba asagii waxay u fadhiyaan madaxtooyada waagaan garow tagay anaa indhayga soo arkay xildhibaanadii la rabay inay gaas la xisaabtamaan oo saf ugu jira anaa soo arkay waagi aan garow tagay 2015 iyo markii ka horeysay aan tagay mar walba Puntland tagay waa arki jiray iyagoo madaxtooyadii saf ugu jiro xildhibaanadii la rabay inay Cabduul la xisaabtamaan baa saf ugu jira marka waxa idin sheegaya shacabkow doorashada soo socota jifo walboy qolo walboy 66 cod 66 xildhibaan mas'uuliyad waxa idin ka saaran qof u qalma inaa keentaan qabiil walbo maadaama aan qabiilka nasiib darro ku gowracanahay qabiil walbo dad u qalma inaa keentaan taasa loogu gudbi karaa hooga nagu dhacay sanadkan iyo baarlamaan aan la xisaabtamaynin dawladii iyo xukuumadii oo wixii raba la marsanaayo taa halkaas aan ugu gudbaaya waxaan ku gabagabeynayaa dawladda federaalka oo madaxweynaha ayaan la hadlaa iyo prime ministerka waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo maanta arrinta dhacday foolxumada ah ee fadeexada ah ee dulmiga ah ee dambiga ah ee qarannimada Soomaaliya meel ka dhac ku ah oo Dubai ka dhacday waxaan rabaa inaan idin xaqiijiyo Puntland ma sameeynin waa huwa inaa fahansantiin Puntland ma sameeynin dulmiga iyo maaragtay fadeexada maanta dhacday Puntland ma sameeynin shacabkeedana ma sameeynin waxa sameeyay dhowr qof oo danahooda shakhsiga ka dhex arkay inay qarannimada Soomaaliya ay ku noqdaan caqabad Puntland waa dad dawladnimada jecel shacabka Puntland waa dad dawladnimada jecel waa dadkii u soo mintiday in ay Soomaaliya soo noqoto wiilashooda waxay ku aasan yihiin villa Soomaaliya oo sacrifice sameeyay arintaas wali waa ka go'an tahay shacabka Puntland madaxweynahooda federaalka ee mudane farmaajo markuu u tagay sidii la ogaay u soo dhaweynay iyagoo cid abaabushay ayna jirin waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo madaxweynaha iyo ummadda Soomaaliyeed shacabkii milyaniska ahaa ee madaxweyne ku soo baxay ka soo bilow gaalkacyo ilaa Boosaaso oo tuulooyinka ku soo baxay oo jidad ku taagnaa oo calamada soo tashay oo caleemaha qoyan ku waday qof soo abaabulay male iyaga soo abaabulay shacabkii Boosaaso ee sidii looga ahaa shacabkii gaalkacyo ciid dhaqaaqday ahaa shacabkii maxal dhahaa tuulooyinka qardho ummadii oo dhan dadkaas iyaga is abaabulay waxayna ka tahay qarannimo jacayl iyo Soomaalinimo jacayl waxaa nasiib darrana qabsaday oo Puntland gacanta ku dhigay group isku xiran oo dana shakhsiya ka hormariya dantii dalka iyo shacabkii Soomaaliyeed iyo qarannimadii Soomaaliyeed marka dawladda federaalka waxaan ka rabaa waana fahansan waa huba ina fahansantiin shacabka Puntland ma matalo Cabduuli maanta waxa uu sameeyay Puntland kuma matalo aniga ima matalo shacabka Puntland ma ku matalo waxaan laga shaqeynaa fidnada laga shaqeynaa oo dawladda federaalka laga hor imaanayo shacabka Puntland maaha waa dad tubo ay uga furan tahay imaaraad madaxweyne farmaajo waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo dadka tuubada ay uga xiran tahay imaaraad oo qaarkood guryaha looga dhisay qaarkoodna biilka uga socdo qaarkoodna kontraktiyada ciidamada haysta qaarkoodna maaragtay guryaha ugu yaalaan Dubai waxa weeye ummadda shacabka Puntland ee sidii looga qoraxda kuugu soo baxay ma ay matalaan calooshooday matalaan gurigooday matalaan iyo reerkooda iyo qoyskooda kaliya Puntland ma matalaan marka madaxweyne mas'uuliyadaada waliba laba laab saddex laab energy-ga Puntland gelin doontid adigii prime ministerka iyo teamka dawladda oo dhan waa in Puntland la badbaadiyaa Puntland doorashada soo socota waa in la badbaadiyaa waa in dhexda loo xirtaa sidii Puntland groupkan gacanteeda looga saar lahaa groupkan anigu qowleysataan u bixiyay groupka imaaraad ku xiran oo isku xiran oo tubooyinka uga furan yihiin imaaraad oo biilku halka ka soo galo groupkaas Puntland in gacanteeda laga saaro waa hadii qarannimada Soomaaliya la rabo in loo heeliyo 3 milyan ku dhawaad 3 milyan oo shacabana dadka afduu uma haysan karaan waana haysteen 4 sano waa laga soo gudbay 6 bilood 7 bilood wareeb u haray intaas nooga ekaato 8 bilood waxay doontaba aatee intaas nooga ekaato laakiin dawladda federaalka waxa laga rabaa doorkeedii inay qaadato madaxweyne hawshaas Puntland dhulkaagi waaye adaa ka mas'uula waa dadkaagi aad mas'uulka ka ahayd cid ka sheegan karta male 20 nin oo la bilo imaaraad bilo ma ka sheegan karaan Puntland xaraam عليك mas'uuliyada ka saaran oo prime minister khayr mas'uuliyada Puntland ka saaran oo waa dhulkaagi oo waa dadkaagi aad mas'uul ka ahayd cid ka sheegan karta ma jirto
cid ka sheegan karta ma jirto mas'uula ka tiin strategic plan u sameeya Puntland oo ma aragtay lagu soo celinayo xirada oo nimankaaneet qowlaysatada oo gacanta ku dhigay looga saaray gacantooda doorashada marka la gaaro hadii Ilaahay idmo shacabka dhan idin kala shaqeynay ana diyaaro idin kala shaqeynaa ummadda Soomaaliyeed dhan diyaaro idin kala shaqeynaysa annaga qarannimo wax ka hooseeyna ma deeqdo wax ka hooseeya madaxweyne iyo mudane ra'iisul wasaare qarannimada Soomaaliya wax ka hooseeyna ma deeqdo annaga shacabka Puntland hadaan nahay marka arinta intaasaan rabaa inaan ku soo koobo waxaan rabaa maanta inaan ka tacsiideeyo ummadda Soomaaliyeed uga tacsiideeyo masiibada dhacday foolxumada dhacday maxaa la dhahaayay hanjab ka dhacay laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo ummadda Soomaaliyeed ma niijabeeno ma quusaneeno laga ma yaabo quus baba naqaanaba Soomaaliyana se u quusana ma quusan naqaana hadaan quusanayno waa horena la quusin lahaa ma garateen waxyaabahan kufka yara oo aan mareynana waa laga gudbaayaa insha Allah ma garateen laakiin waxa loo baahan yahay wada shaqeyn in la wada shaqeeyo dawladda federaalka iyo shacabka Puntland inay wada shaqeeyaan taasoo loogu gudbi karaa marxaladda maanta taagan anagu nabadgelyaana rabnaa inaan ku dhameeyno wax walba dalka inuu nabad ahaadaan rabnaa buuq iyo rabsho ma rabno fawdo lama rabo Puntland inay nabadeed ahaataa la rabaa laakiin si tartiib ah transition inuu u dhaco insha Allah yaa si tartiib ah transition inuu u dhaco doorashada soo socota la xaqiijiyo in groupkan imaaraadka ku xiran gacantooda laga saaro Puntland waa hadii qarnimada Soomaaliya rajo laga qabo yaa diyaara u nahay inaan ka shaqeeyno anigu hakan maayo sida uu sheegay way campaign-ka waan galayaa insha Allah waan soo galayaa doorashada waan u cararayaa qofkii markaas aan isleeyahay uu iiga haboon yahay hadaan arkana waan taageerayaa insha Allah oo ii badbaadinaya Puntland iyo Soomaaliya aniga iigama dhagana Safiyoy gabadha madaxweyne noqotay waxa aniga iima taala maanta ma garateen waxa ii taalo oo doorashada u soo galaya dalka in la badbaadiyo meeshaan inaan Minnesota fadhiyo macquul ma aha dalka in la badbaadiyo waa nin hadaan arko iiga haboon waan taageerayaa haddaan sheegaya waa taageerayaa nin iiga haboon Puntland oo aan kala shaqeyn karo in qarnimada Soomaaliya la adkeeyo hadaan helo waa taagna insha Allah diyaaran wax marka waa in laga saaro groupkan gacantooda Puntland yaa Puntland waa meel qiimo badan Puntland waa strategic Puntland resources badana ku jira Puntland Soomaaliya waaye waa hooyadii Soomaaliya marka waxaan idin sheegayaa walaalayaalo intaasaan ku soo koobaya Puntland ma aragtay lama afduuban karo Puntland shilimaad lagu ma gadan karo Puntland imaaraad looma gumeyn karo ee kala ma aragtay Arab ah oo kale cidna looma gumeyn karo Puntland waa meel istaraatiijiga oo sharaf leh oo dadkii sharafta lahaa ay ka soo jeedaan ee Soomaaliya qarnimadeeda soo abaabulay Soomaaliya calankeeda dadkii keenay dhulkii ka soo jeedeen maanta in Carabtiina tuugsan jirtay 70meedii la hoos geeyo wax la qaadan kara ma aha ragga sameeyayna waa rag khaldamay waxay cabeen ma naqaano ma garateen han bay lahaan jireen ummadda Soomaaliyeed especially khaasatan dadka Puntland han iyo qab sare lahaan jireen ragga maanta horbooday waxay cabeen ma naqaano iyo wax dhalay iyo waxay yihiin midna ma naqaano ma garateen wax la qaadan karana ma aha marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waa dheereeyay insha Allah ummadda Soomaaliyeed tacsi way maanta waa idinka tacsiideynaya waxa dhacay madaxweynaha nama matalo khalad ku galay maxaa la dhahaayay ummadda Soomaaliyeedna way wada aragtaa shacabka Puntland inay ka gilgisheen ummadii waa gilgilatay moorna waa la tusi doonaa insha Allah anigu waxaan jeclaan lahaa mudaharaadii in la sameeyo hadii mudaharaadida si nabad lagu sameyn karo oo maxay ahaydey ayna rabsho dhaceenin laakiin waxaan ka baqayaa security issue iyo waxaas inay dhacaan marka ma rabo dad inay naga dhintaan ma rabo ma garateen laakiin wuu istaahilaa gaas in lagu mudaharaado oo laga hor yimaado balse waxaan leeyahay 5 bilood oo hartay hal isaga dulqaato hana la contain gareeyo damage kale yuuna noo geysanin iyo dhibaato kale dalka yuuna u geysanin hala contain gareeyo dawladdu sharciyo soo saar la xakameyn karo hadii la xakameyn karo marka hadii ayna suuragelaynin at least bal isha lagu haayo talaabooyinku qaadayo waay qariska xornimo waa waxa socota aad iyo aad baan uga xumahay waa idin salaamaya walaalayaal intaasaan ku soo koobaya waa Safiya Yaasiin mar kale insha Allah Soomaaliya way guuleysanaysaa ma quusanayno quus ma naqaano Puntland way guuleysanaysaa oo iyadoo Soomaaliya garbaheedu u ah bay guuleysanaysaa maanta waxa dhacay xogaa ku faasirna waa loo gudbi doonaa insha Allah aad baa u mahadsantiin walaalayaal waxaan u soo galay tacsidaas khayr Allah idin siiyo
inta soo gashay waxa ay ii qorteenna ma akhrin karo walaalayaal insha Allah hadhow waan akhrinayaa qofkii su'aalo i weydiiyo waa idin jawaabi doonaa aad ba u mahadsantiin taageeradiina aad mar walba maaragtay ummadda Soomaaliyeed dalkiina Soomaaliya taageerada aad ula taagantiin ana taageertaan waxa waaye dalkeena taageeraysan annagoo dhan dalkeena taageeridiisa naga go'an marka aad aan idinku mahad celinayaa asxaabteeda friendskayga oo maaragtay mar walba igu taageera halgankan وانا وضعنا إن شاء الله جزاك الله خيرا كلجين سوماليا ويقول سنة سوماليا give up من قانا أنا مقوسنا إنه أدبوا مع سنتين وحنا إذن الله نبض ينولل أيان هلينا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته